الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا والداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. درسينا وحوكا بالله ما يا آية كوباد سورة قريش. سورة وسورة دي بقولي اللحاد سورة قرآنك مقعد سورة قريش أيال ليلة هذا ولإلاف قريش بيكو باللاب ميسا وصورة مكة كسود دكتي هذا الكاذو وحوكو سابسيهي رب سبحانه وتعالى نعموينكي ونمانك قريشات ugu نعميي oo nicmadaasi laba qaybood ka kooban nabadgeliyo iyo barwaaqo ayaa la isugu daray. nicmadii noocaas ahayd baa la xusuusinayaa markaasaa shukrigeediina amar lagu siinaya. waxaa marka la leeyahay suuraddan suuraddii hore ayay xidhiidh la yeelan kartaayoo waa la isku xidhi karaa. وحا رب سبحانه وتعالى مركو يري بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ألم عيسى له الرحمن نحريست قود نحريسنا يا الرحيم نحريست قارن من نحريسنا يا الله مج عيسى كب الله بنيا لإيلاف قريش. قريش أدومن كذا إيلافهم أدومن كذا رحلة الشتاء ررشد الجلال كي اي ادنمان ايا والصيف ررشد حقاقيئة فليعبدوها وعابدين رب هذا البيت اقل كان ربجيسة الذي ربجي اطعمهم قوذي من جوع قاجك قوذي وآمنهم نبدقلي من خوف عبسنا كنبدقلي. وحير رب سبحانه وتعالى nimankan quraysheed waxay u dulmeen oy barteen oy ka caado yeesheen laba rarasho oo labadaa rarasho ku saabsan safar ay gelayaan oo ganacsi iyo baayac mushtar ay u gelayaan. mid waxa weeye safar ay jilaalkii raranayaan oo Yaman ay u safranayaan. midna waxa weeye safar ay xagaagii raranayaan oo ay xagga Shaam u safrayaan. xilliga qaboobuhu uu jiro Shaam waa qabow oo loo safri maayo, Yaman baa loo safraya. xilliga kulayluhu uu jirana Shaam baa qabow oo xaggeeda loo safraya. labadaa rarasho ayay ka caado yeesheen, barteen, la qabsadeen. labadaa degmo ayaa wax alla wixii baahi ah ee ay leeyihiin ay ka soo qaadanayaan iyaga oo nabad ah. markaasaa safarkooda cid wax yeeli karta iyo cid dhibaataynaysaay midna ayna jirin. dantoodii bay soo dhammaysanayaan iyagoo nabad ah oo ganacsigoodii wata oo barwaaqaysan ayay magaaladoodii ku soo noqonayaan. safaradoodii sidaa haw ahaadaane degmadoodana sidaasoo kale nabad looga dhigay oo awalam numakin lahum xaraman aaminan wey wayutakhadafu nnaasu min xawlihim. dadkii kalena dhinacyadooda la dafayaayoo waa lays cunayaa, iyaguna xaramka nabadda abay degayiin. haddaba allaha nabad iyo barwaaqo isugu daray
allaha intay ku shukriyaan ha caabudaan oo isaga ha ka cabsadaan saasuu rabbi subxaanahu wa tacaala marka liilaafida falyacbuduuda dambe inaad ku tacallujiso falyacbuduuha caabudaan rabba haada albeyti ha caabudaan liilaafi quraysh la qabsigeeda iyo udumankeeda iyo barashadeeda ay u dulmeen rixlata shitaa'i rarashada ilaafihim udumankooda rixlata shitaa'i rarashada xagaagii ihiyo wasayfi rixlata shitaa'i rarashada jiilaalkii ihiyo wasayfi rarashada xagaagii taa darteed ha u caabudaan oo nicmada shukrigeeda darteed ha u caabudaan haddayna si kaleba ilaahay u caabudayn waxaad ku xidhi kartaa fajacalahum ka casfin ma'kuulintii suuraddii hore fajacalahum ilaahay wuxuu ka dhigay ciidankii abrahaa ka casfin ma'kuulin balla cunay oo kale ayuu ka dhigay muxuu uga dhigay liilaafi qurayshin buu uga dhigay quraysh barashadeedii iyo laqabsigii iyo udumankii ay u dulmeen ilaafihim udumankoodii rixlata shitaa'i wasayf sidaa darteed baa ciidankaa loo burburiyey oo ciidankaa abraha kolkii la baabi'iyey intii ka dambaysay cid carab u banbaxday quraysh oo waxyeeshay ma jirteen nabad baa la siiyey waa ahlul xaram baa la odhanayaayo ciddii waxyeello ugu soo kacda ilaahay baa ka difaaci baa la odhanoo calan cad bay qaateen marka liilaafi qurayshin quraysh udumankeeda iilaafihim udumankeeda dartii rixlata shitaa'i rarashada jiilaalkii ah ay u dulmeen iyo wasayfi rarashada xagaagii ah falyacbuduuha u caabudaan rabba haada albeyti aqalkan rabbigiisa waa aqalkan kacbada ah alladii rabbigii adcamahum quudiyey min juucin gaajo ka quudiyey wa aamanahum nabadgeliyey min khawfin cabsina ka nabadgeliyey suuratulmaacuun suuraddan magaceeda suuratulmaacuun baa layidhi waa suuraddii 107 waa makiya waxay ku soo degtay maka aayadaheedu waa 7 aayadood suuratu quraysh aayadaheedu 4 aayadood wey suuratulmaacuun marka waa 7 aayadood waxay u hadlaysaa suuradihii makiga ahaay siday u hadlayeen qofka gaalka ah dhaqan xumada uu ku dhaqmayo oo 2 nooca rabbi subxaanahu wa tacaala cibaadadiisii oo uu ka gaaloobay addoommada u samafalkoodii oo uu diiday 2 ceebood baa lagu ceebaynayaa iyo qiyaamadii oo uu diiday 3 ceebood wuxuu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim ara'ayta bal ka warra nabi allow alladii addoonkii yukadibu beeninayey biddiini abaalmarinta beeninaya ee qiyaamadaba dafiray fadaalika kaasi alladii waa kii yaducu lyatiima agoonka riixayey walaa yaxudu aan guubaabinaynin aan dhiiri gelinaynin calaa tacaami almiskiin addoonka quudintiisana aan ku dhiiri gelinaynin faweylun cadaab adag baa lilmusalliyiina kuwa tukanaya u sugnaaday aladiina musalliinta hum iyagu can salaatihim salaadoodii xaggeeda saahuuna ka sahwiyey aladiina kuwa hum iyagu yuraa'uuna istusaya oo wayamnacuuna almaacuun maacuuntana manciyaya wuxuu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala bal rasuul allah waxaad ka warantaa addoonka qiyaamo beeniyey ee diiday ka noocaasi waxa weeye agoonka ayuu difaacayuu riixaayoo wuu dhibaateeyaa agoonka miskiinka wax siintiisana ma dhiiri geliyo oo dadka kale kuma dhiiri geli isagu agoonkiibuuba waxyeelaynayaa masaakiintana dadka ku tirtirsiyi maayo wax u taridooda qiyaamadii wuu diiday dhaqan xumadaana addoommadiibuu kula dhaqmayaa haddana cibaadadii rabbina
وكسهوية فويل للمصلين ويأو عذاب درن بيليهم كو صلاة كذا الذين هم عن صلاتهم ساهون صلاة ضاضين اسكسهوية صلاة ضاضي بي سهوية توحوية وقت قاذي بي كساريان أركان تذي بين أقرم ما يسترين وهم منافقين الذين هم يراؤون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا سيدوك لسما فاليريديس ويمنعون الماعون ماعون تنوي منعنيان ماعون توحوي ألابتا أي حافظها درسكي إيه كلي إرقستاني كلا قاتان حاجرتا ألاب إسكابا فضفضب oo xaafadahaasi intay isu soo wareegaan ay kala qaataan tashtigii dharka lagu maydhanayay iyo tuubadii biyaha lagu dhaansanayay iyo malqacadii wax lagu cunayay ama wax la darsanayay distidii wax lagu karsanayay kildhigii koobashii barkimooyinkii gogashii waxyaalaha jira ay dumarku kala qaataan wixii noocaas ahaa buuna ogolayn marka in isaga xaafadiisa cidi soo gasho oo albaabkiisa la garaacaba ma ogola ihsaan agtiisa ma yaalo maacuunta yaryar haddii uu diiday wax ka sii badan miyaadu malayn inuu ogolaanayo marka waxa weeye isagu waa sidaas oo wax samafal ah oo agtiisa yaalay ma jiro mu'minka waxa uu caado ah إنه رب سبحانه وتعالى عابده وعبادتي هجاتيه قيامة الديار قروبه الضومة الصمفالو مساكين تأون حريستو أغون تأون حريستو جارك أون حريستو مؤمنين تو بلشو وإلهي أغط رجالي تكافل إيو اسكت لحنولانشي إيو إني إيو اسكت تير سنادان لكن قال مبادئه ذا كسر يسن كريج نولانشها كان كلي أكتيسي هدنتو إسقون هدرجو إنتاسي إسقى أو أكتاه إسلام كلكين ما أقولا إنا أديكو أو كي أكتاه هاي جايسينه أديكو دركتو دركو ساحتو ما يلا ما أقولا إن لك على ورهاي والله بعد حافظوا ذي درسكيه أي سوقادان واللي يراه ورمانتا حافظ هبلاية ضفكي باك بختيه بل انتان نجار كيه وحي اينو اقبان كرنو آني سوصو دردرنو قفكا سوا مسكينو وحمها يستو حافظا سوا اغونو وحمها يستان ريه بالمانتا وحبا كسين نقضي اسوغان شهاس ايو اسلام كبقان كيسوية أرأيت بالك ورهن الذي أدونكي يكذب بينيني بالدين قيامة بيننا فذلك كاسي الذي واكي يدعو اليتيمة أغنك الدفاعي الريحي ولا يحض أن يرجلين أن ترترسنين على طعام المسكين مسكين كقود تيسنة أن ضدك كترترسين فويل عذاب أذقبا للمصلين أصقنا ذي كوة كذا الذين مصلين تهم إيوا عن صلاتهم صلاة دوضة حق إذا ساهون كسهويي في صلاتهم ساهون لما أرننا عن صلاتهم ساهون بل صلاة ديبا حق هذه اسكي إلوبين وصلاة أن لودان لحينو استصنما أن لو تكنيو حدي ملايان إنينا عذي كورقبين ويبا اسكي الدينيان الذين وكوهم إيغو يراؤون استصيا ضدك استصيا ويمنعون وحي منعنيان ويديديان الماعون ماعون تنوي ديديان سورة الكوثر مكية سورة دنمجة هذا سورة الكوثر بالله وسورة دي بقول سيديداد وحيكو سودكتي مكة آية هذا وصدح آيات وسورة دا أقابا قرآن كسورة ديس وحيكو سودكتي رسولك صلى الله عليه وسلم kolkii ay wiilashiisii dhintaan 3 wiil buu rasuulku dhalay qaasim oo wiilkii curad ahaa iyo cabdullaahi oo kii labaad ahaa labada waxa dhashay khadiija ibraahim oo gabadhii la oran jiray maariya al-qibtiya ay dhashay 3 wiil buu lahaa rasuulku iyo 4 gabdhood
saddexdii wiil baa saddexduba dhintay iyagoo yaryar bay dhinteen markaasay nimankii gaalada ahaa ayaa waxay yidhaahdeen maxamed waa gablan ilan iyagu wiilashanun bay caqiidaynayaan war iska daaya waa gablan oo kale sidaas ma ahe isna hadhowbu iska dhimane saasay odhan jireen arrintii noocaas ahayd ayuu rabbi jawaab ka bixiyey wuxuu yidhi marka rabbi subxaanahu watacaala bismi illaahi araxmaani araxiim innaa annagaa acdaynaaka ku siinay alkawthara khayr fara badan baan ku siinay ee fasallituka rasuul allow lirabbika rabbigaa u tuka wanxar gowrac lirabbika u gowrac inna shaani'aka adiga ka ku nacaay huwa isagaa alabtaru ka gablanka ah wuxuu yidhi rabbi subxaanahu watacaala rasuul allow waxaan ku siinay kawthar kawtharka ha la yidhaahdo aqwaal badan baa jirta laakiin qowlka u wanaagsani waxa weeye in la yidhaahdo khayr fara badan oo maxaa soo gelaya darka nabiga sala allahu calayhi wasalam maalinta qiyaamada uu siiyey oo ciddii ka cabtaay weligeed oo dambe ayna dib u oomaynin oo haraa dambe ayna dareemayn allah inagu dara kuwa ka cabbe darkaas akwaabtiisa waa ka cadadi nujuumi samaa biyihiisuu caanaha way ka cad yihiinoo malabka way ka macaan yihiinoo waa biyo ilaahay uu u xulay ciddii dhadhamise ee cabtana weligeedoo dambe ayna harnaa dareemay ma intaan weli jannadaba la gelinba mise waa jannada dhexdeeda labadaba la yidhi kawtharkaas dad baa laga leexin doonaa allah haynaga duwe kolkaasuu rasuulku odhan doona kuwaasi waa ummadaydiiye darka ku soo leexiya kolkaasuu rabbi odhan waxay dabadaa sameeyeen baadan ogayne iska dhaaf ragga war baa loo hayaayo waxay sameeyeen dadka ha sheeganin haddaba kawtharka kaasi wuu soo gelayaa waana lagu fasiray isaga waxaa soo gelaya nabinimadii waxaa soo gelaya qur'aankii waxaa soo gelaya shafaacadii wax alla wixii wanaag ahaa ee la siiyey oo dhan ku fasir innaa acdaynaaka alkawthar kol haddii rabbigaa sidaa kuu karaameeyey adna maxaa kugu daw a shukri ilaahay u tuko oo caabud gowracaaga iyo salaadaaduba dar alla ha noqdaanoo inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin sidaa ha ahaato ragga ku nacay adiga iyagaa gablana waa kuwii rasuulka lahaa waa gablan cas binu waa'il iyo weliid binu muqiira abujahl cuqbatu bnu abi mucayd abilahab ru'asadii gaaladu iyagaa wada gablamay oo qaarna wiilashii ay dhaleeni wayba muslimeen dee kol hadduu wiilkiisii muslime isagii iyo wiilkiisii wax ka dhexeeyaay ma jiro way kala gablameen weeye kolkaa rasuulkana sala allahu calayhi wasalam ilaa qiyaami saaca isagaa diintiisii lagu dhaqmayaa isagaa raadkiisii lahayaa isagaa lagu wada salliyayaa isagaa la jecel yahay sheegitaankiisuu intaasoo dhan wuu soconaya aakhirana dee derajaba derajaday ka qaalisan tahay ayuu uga sii gudbaya kolka iyagaa gablamay ee rasuulku muuna gablamin innaa annagaa acdaynaaka ku siinay rasuulallow alkawthara kawthar baanu ku siinay ee fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko oo wanxar gowrac lirabbika rabbigaa u gowrac oo waxaad gowracaysana rabbigaa u gowrac wixii aad tukanna rabbigaa dartii u tuko yuu rabbi subxaanahu watacaala ayuu rasuulka yidhi xaqa allahayna waafajiyo wabillaahi tawfiiq وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.